السلام عليكم saddexdan niche haddii aad YouTube ku bilowdo sanada 2024 waxaa hubaala inaad heer ka gaari doonto haddaba muxuu yahay niche-ka koowaad inta aan muuqaalka guud galin waxaan ka codsanayaa inaad channel subscribe noo saarto muuqaalka like noo saarto haddaba haddii aan guud galno muuqaalkeena maanta niche-ka koowaad waa qulaaseynta filimada niche-kan waxaa dad badan ay ku soo caan bixeen sanadii 2023 qulaaseynta filimada waa adoo filimada soo turjumo dadka inta badan ma jeclaan inay daawadaan filimo waqti badan qaadanaya kaliya waad soo turjumaysaa waadna soo gaabanaysaa waxaadna soo gelinaysaa barta YouTube-ka waxaadna helaysaa viewers saaid u fara badan sababtoo ah dadku waxay xiiseynayaan filimada gagaaban iyaga oo diiday inay waqti ku bixiyaan filimada waqtiyada dheer soconaya haddii aad niche-kan ku soo geliso YouTube-ka waxaa si boqolkiiba boqol kuugu hubaa inaad horumar ka gaari doonto niche-ka labaad waa content creation ama sida muuqaalada loo edit gareeyo sida aan wada ognahay dadka inta badan waxay xiiseeyaan sida muuqaalada loo edit gareeyo haddii aad niche-kan ka soo hadasho oo aad tahay qof editor ama qof sida muuqaalada loo edit gareeyo garanayo aad muuqaalo ka soo sameeyay sida muuqaalada loo edit gareeyo waxaan hubaa inuu niche-kan yahay mid anfacayo dadyo fara badan adigana aad ku noqon karto qof YouTuber ah niche-ka ugu dambeeyay waana niche-ka ugu xiisaha badan niche-kan waa niche-ka loogu talagalay qisooyinka iyo taariikhaha niche-kan ayaa sanadadii hore aad dadku aysan u garaneyn balse sanadan 2024 waxaa dadyo fara badan ay soo geliyaan bartooda YouTube-ka iyagoo ka soo hadlaya qisooyin iyo taariikho niche-kan ayaa wuxuu saaid u soo jiitay dadyoga Soomaaliyeed ama dadyoga caalamka marka la dhaho taariikh ka hadalka haddii aad adna tahay qof codkar ah oo codkiisu uu meel dheer gaaro ama cod fasaxa leh ama cod wanaagsan leh oo aad kaga soo hadli karto taariikhaha niche-kan aad iyo aad ayuu ku anfacayaa waxaadna ku noqon kartaa YouTuber dhameystiran sanadahana soo aadan muuqaalkani maanta isku eg yahay muuqaalka xigana insha Allah waxaan ka soo dhigi doonaa sida loo duubo cod fasaxa